aniga walaal waxa la yiraahdaa Maxiyadiin Ciise Cabdi waxa weeyaan da'dayduna waa 27 jir waxa weeyaan xaasayguna waxaan ka koobanahay 5 ciyaalkaygu hablayguna waa 2 inankuna waa mid magaalada aan ku noolnayna waa Hargeysa walaal wax neef oo aan leeyahay haba yaraatee ma jirto magaaladan Hargeysa amni baan u imtay amni ayaan u imtay anigu maanta halka Ethiopia ahay waxa weeyaan dadkii la baabiyay baraka soo barakacay baan ahay waxa weeyaan maanta dad iyo xoolaba midba ma aysan dharna Allah ka yeelay waxaan u timi jirtay intaay markaan ku yar shaqaysanaya dameerkaas oo kala taman badar Ilaahay ugu yibi kolkaan waayahay ugu sheegtay qaabka munaafacaadka aan ku munaafasadeen ugu adeegsado waxa weeyaan gelinka hore markaan ku yar shaqeeyo 3 saacadood baan nasiyaa 3 saacadood markaan nasiyo waxa weeyaan 3 saacadood markaan siyaa dan 2 saacadood baan ku yar noqdaa makarnasa marka waxa weeyaan dhaqaalihiisa aad baan ugu roonaa waxa masaariif ka soo helnaa waa ku tago walaana kolkaan isaga eegayo soddon xaafadda siya 20 isaga siya marka horeba waxa weeyaan gidaarkaasaan fadhiyay gidaarka bad maanta waa hadaan dameerka haysan laba arkeen nin baaba dameerka dar Ilaahay ugu iibiyay markaasaan gidaarkii ka kacay baday laba galaan oo galiyaan dhigaa cawskana 10 kun baan u dhigaa samaad garan kolba wuxuu cuni karay taalkiisa baan u keenaa wax maanta lagu dhuftana waan ka ilaaliyaaba oo ka kala ateedee ubadka maanta aan ku eegayeen baxnaanayeen aan ku ciyaalka ku korsanayeen aad bay khatartaa noogu maanta noogu wax qabata samaad garan nafsida Ilaahay qoraysiya dambeysaba way la socotay aad buu buufiyaan ahla yaro cidi farta caaradeeda ay soo gaadho maanta waxa weeyaan way nooga sifeeyaan samaad garan maanta waxa weeyaan taas aad bay wax noogu qabtaan